saaxiib saas maaha igu kalsoono ayuu leeyahay marka ereyga dude macnaheedu waa saaxiib friend ay la mid tahay Killer fiance still at large? That's the same act she just had. Killer fiance still at large saaxiibkiisa wuxuu dhahayaa caruusadii dilaaga ahayd weli lama qabanin at large ereyga at large macnaheedu waa hadal dadban laakiin waxaa lagala jeedaa qof dambiila waanan weli la qabanin that's the same action just heard hadalkiisa ku daray yani waan aragnuu dhahay waxyaabaha noocaan oo kale ah horaan waa aragnuu dhahay It's not like Look at this. Who's next? It's you. It's not like that ayuu ku jawaabaya oo dhahaya saaxiibkiisa wuxuu dhahayaa marka who's next yaa ku xigma taqaanaa ayuu dhahayaa it's you waa adiga It's a picture of you. Dude, it's not like that. Trust me. It's picture of you sawirkan waa adigu leeyahay Ow. I'm sorry. Listen, bro. She's in the backyard digging for jewelry. Oh I'm sorry, listen bro, she's in the backyard digging for jewelry. Markaasuu dhahayaa saaxiibkiisa trust me u kalsoonow waan ka xumahay dhegeyso saaxiib waxay ku jirtaa uu dhahayaa beerta si ay dahabka u soo qodato She made you sign a will, giving away all your intellectual property. She made you sign a will waxayna sidoo kale kaa saxiixatuu yidhi dhaxal iyo dhammaan waxa aad hantida u lahayd She moved her family in and her new boyfriend. She moved her family in and her new boyfriend qoyskeedana way kula soo dejisay iyo saaxiibkeeda cusub Look, you've been my best friend for 7 years. Either I can walk out that door and you'll never see me again, or you can trust me. wuxuu dhahay look Firi you've been my best friend waxaad ahayd saaxiibkay ugu fiican for 7 years 7 sano ayaan saaxiibanahay either I can walk out that door laba midun bay noqonaysaa ayuu dhahayaa in albaabkas ka baxo and you will never see me again ama oo aadan mar dambe dib ii arkin or you can trust me ama waad igu kalsoonaanaysaa I trust you. Thank you. She's a gold digger. markaasuu dhahayaa I trust you waan kugu kalsoonahay do you really trust me wuu ku celinaya wuxuu leeyahay do you really trust me ma igu kalsoon tahay runtaa miyaa ma igu kalsoon tahay markaasuu dhahay thank you I definitely do ha aada umaasan tahay shaki la-aan waan kugu kalsoonahay she's a gold digger iyadoo waa qalin shubato Yeah, she's clearly trying to kill me and take my money. Yes. Well, what do I do? Yeah, she's clearly trying to kill me and take my money. Iyada sida iska cad waxay isku dayaysaa inay i disho and take my money lacagteedana ay qaadato When she comes back in here, you say we're breaking up. markay soo laabato waxaa dhahaysaa ani adi waa noo kala dhammaatay You say we're done. Mandy, we're done. Yeah, and that she's going to jail. She's going to jail. And we're calling 911. We're calling 911. wuu ka daba qaadaya markaasuu leeyahay you say we are done waxaad dhahdaa uu leeyahay we are done ani adiga waa noo kala dhammaatay Mandy she's going to jail xabsiga ayay gelaysaa and we are calling 911 booliiska ayaan wacaynaa we are calling 911 waa number booliiska laga waco But let me hear you say it. Hey, Mandy, we're done, and you're going to jail for the rest of your life. let me hear you say it imaqshi ayuu dhahayaa That's too nice. Say it more aggressive. Cave in your chest a little bit. I'm caving it. That is too nice saas waa si fiican u dhahayaa say it more aggressive si gardarro ka muuqato u dheh ayuu dhahayaa markaas cave in your chest a little bit xabadka adoo xoogaa taagayo Hey, Mandy, we're done, and you're going to jail for the rest of your life. Yeah, here she comes. hey Mandy we are done Mandy xiriirkii intaas ku egyahay and you are going to jail for the rest of your life noloshaadoo dhanna xabsiga ayaad ku dhammaysan doontaa yacni waad qiyaanta camal happy housewarming ayadaa soo gelayso markaasay dhehaysaa happy housewarming saaxiibtiisa intay imaado waxay dhehaysaa housewarming oo macnaheedu tahay soo dhoweyn martiqaad oo kale ah Hey, Mandy, we're done, and you're going to jail for the rest of your life. hey Mandy we are done Mandyay ani adiga xiriirkii intaas ku egyahay and you are going to jail for the rest of your life noloshaadoo dhanna xabsiga ayaad ku qaadan doontaa What did you just say? I said we're done because you're clearly a gold digger. markaasay dhehaysaa what did you just say maxaa tiri ayay dhehaysaa I said we are done wuxuu dhahayaa waxaan ku idhi we are done xiriirkii intaas ku egyahay because sababtoo ah you are clearly a gold digger sababtoo sida iska cad waxaa tahay qalin shubato oo lacagteeda oo keliya ayaad fiirisaa I was digging in the backyard because I know you owe the IRS inheritance taxes. I was digging in the backyard because I know you are with IRS inheritance taxes. Waxay dhahaysaa waxaan qodaynay beerta guriga sababtoo waxaan ogahay inay waajib kugu tahay inaad canshuurta wax ka bixiso ama hantidaada aad canshuur ka bixiso. Well, why'd you disguise your family? Wuxuu dhahay hagaag bal maxaad qoyskaaga la qarsatay yani u qarisay inay qoyskaaga yihiin kuwaan u dhahayaa. I was really nervous about you meeting them, but
I wanted you to meet them before we took our next steps. I was really nervous about you. Adaan ka warwarsanay leedahay meeting them inaad iyaga la kulanto, but I wanted you, laakiin waxaan kaa rabay to meet them before we took our next steps. Inaad iyaga la kulanto ka hor inta aanan qaadin tallaabadeenna xigta. It's actually a tradition in my family also. Yeah. Markaasuu saaxiibkiisa wuxuu dhahayaa it is actually a tradition in my family also. Xitaa qoyskeena dhaqan ahaan ayaysaan u yihiin ayuu dhahayaa. Pablo, what about? Yeah, what about Pablo? Oh, he's super gay. Pablo, what about? Wuxuu dhahayaa Pablo ka waran saaxiibkiisa dhahaya. Markaasuu asna wuxuu dhahayaa yeah, what about Pablo? Ka waran Pablo. Markaasay dhahaysaa oh, he's super gay. Gay waxaa la dhahaa qaniis ah. Now that I think of it. Yeah. The will. She made you sign. Yeah, why'd you make me sign the will? The will. She made you sign the will. Waxa weydiisaa u dhahayaa dhaxalkii iyadoo ay kaa saxiixatay. Why'd you make me sign the will? Maxaad yacni iga saxiixatay dhaxalka? No, honey, that was a waiver for hang gliding. I just wanted to make sure you were protected. Markaasay dhahaysaa no honey xabiibi saas maaha, that was a waiver for hang gliding. Waxaa kaliya yacni noogu talagalay inaan hang gliding aan ku sameyno. Hang gliding waa ciyaar yacni diyaarad baa la fuulayaa kadibna diyaaraddaas yar baa lagu soo damaashaaday hawadaas inaan ku bixino ku qashgareyno aan ugu talagalay dhahaysaa. What about the newspaper clippings of all the murders? Yeah. What about the newspaper clippings of all the murders? Saaxiibkiisa wuxuu dhahayaa bal ka waran warqadihii ay ku qornaayeen dilalka waxyaabahaas bal ka waran u dhahayaa. No, I was going to tell you today. I'm starting a true crime podcast. I'm really excited about it. I was gonna tell you today I'm starting a true crime podcast. Waxaan rabay inaan bilaabo podcast aan uga hadlaayo inaan yacni ka hadlo falal dembiyeed run ah oo dhacay inaan ka hadlo ayaan rabay ayay dhahaysaa. Maybe it's. Get out of my house! No, but bro, Get out of my house now! Get out of my house now. Hadda guriga iga bax ayuu ku dhahayaa. You do this all the time. What's the name of the podcast? Get out! Go! Don't come back. Get therapy. You do this all the time. Markasta ayaad saan igu samaysaa ayuu dhahayaa aniga oo igu dirtaa gabdhaha la sheekaysto. Get out, don't come back. Saaxiibkiisa ku qaylina wuxuu leeyahay iga bax guriga mar dambana dib ha igu soo laabanin. I'm so sorry, baby. I get it, but you can trust me. I'm so sorry, baby. Wuuna ka raali gelinaya. I get it. Waxay dhahaysaa waan fahmay. But you can trust me. Laakiin waa inaad igu kalsoonaataa ay leedahay. Okay, baby. Look, I made it for you. Take a bite. Okay. Waxay dhahaysaa look, I made it for you. Fiiri bal adaan kuu soo sameeyay cuntadan. Take a bite. Bal hal mar yacni afka gashay leedahay. Does it have almonds? Shellfish. Does it have almonds? Weydiina wuxuu dhahayaa almonds ma leeyahay. All right, everybody out. Grab what you can. Markaasay leedahay alright everybody out. Waayahay qof walba waa inuu banaanka yacni ola baxaa grab what you can. Wax walbana aad qaadataan ayay dhahaysaa.